waxaa laga wariyay ibnu cabbaas ilaahayaha ka raali ahaadee inuu ilaahay abuuray soomiya oo ah aabbaha jinka 2000 oo sano ka hor abuuritaankii aadan kadib waxa uu ilaahay ku yidhi wax dalbo soomiya waxa uu ilaahay ka dalbaday inaan iyaga la arag ee iyagu un wax arkaan alla waxa uu tilmaamay khatar aad u badan markaasaa waxa uu innahu ibliiskaas shaydaan iyo cola shaydaankaasi yaraakum uu idin arkayaa huwa isagii weynaa iyo qabiilhu tolkiis iyo colaalkiis min xaytu laa tarawna meel bay idinka arkayaan idinku aydaan arkay sibay idin arkayaan xaytuda labada dhanba waa la odhan karaa sibay idin arkayaan idinku aydaan u arkaynin baladu waxaa sawirataa col kugu soo maqan oo hubaysan oo gantaalihiisii wata oo aad ka indha saabanta kadib jinka ilaahay dhulka ayuu u soo dejiyey wax kasta oo ay u baahdaanna wuu ugu diyaariyey iyaguna way caabudi jireen sidaas ayuuna jinku ku noqday ciddii ugu horreysay ee ilaahay dhulka ku caabudda خلق الله عز وجل سمي أبا الجن قبل خلق آدم عليه السلام ب1000 عام وقال عز وجل لسمية تمنى فقال سمية أتمنى أن نرى ولا نرى فلبى الله عز وجل لسمية أمنيته وأسكنه الأرض له ما يشاء فيها وهكذا كان الجن أول من عبد الرب في الأرض markii ay ku tirmeen arlada ilaahay uma mahadnaqina way kibreen oo fasahaadeen way islaayeen dhiig badanna way daadiyeen kadib ilaahay waxa uu u soo diray malaa'ig si ay u xakameeyaan qooqa jinka markaas ay malaa'igtii laysay wayna dabar jareen in yar oo jasiiradaha badaha u firdhatay ayaana ka badbaaday waxa ay malaa'igtii dhulka ka qaadeen ibliis oo abaydin ah waxaana ay geeyeen samada halkaas oo uu ku barbaaray magaciisuna waxa uu ahaa casaaziil waxa uu kaga dayday malaa'igtii cibaadada ilaa uu noqday ka ugu cibaadada badan carshiga ilaahay hoostiisa waxaa ku xardhanaa ibliis allaha ka fogeeyay naxariistiisa kadib malaa'igta mid kasta oo ka mid ahi waxa uu ka cabsi qabay inuu noqdo ibliiskaas kadib waxa uu malag kastaa casaaziil ka dalbi jiray inuu ilaahay u baryo inaanu noqon ibliiskaas iyaga oo u arkaya in casaaziil uu ugu cibaado badnaa oo ilaahay uga dhowaa kadib malag kasta ilaahay ayuu u baryi jiray balse waxa uu ilaaway inuu isagu ilaahay ka magan galo inuu ibliiskaas noqdo isla weyni ku jirtay awgeed الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير kadib ilaahay waxa uu abuuray aabaheen aadam isagoo aan weli naftii lagu afuufin ayuu soo maray ibliis kolkaas ayuu gartay inuu yahay noolo cusub oo ilaahay abuurayo kadib waxa uu ogaaday inuu yahay noolo guda la galo leh markaas ayuu galay oo fahmay inuu yahay noolo la dagi karo
markaas ayay xaasidnimo gashay waxa uu yidhi haddii amarkaaga lay dhiibo aadanow waan ku hoojin doonaa haddii amarkayga adiga laguu dhiibana waan ku caasiye ilaahay waxa uu amar ku siiyey malaa'igtii inay u sujuudaan aadan way u wada sujuudeen ibliis mooyaane waxa uu ku andacooday inuu ka mudan yahay isagu ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين kadib ilaahay waxa uu ka fogeeyey naxariistiisa waxa loo diiday inuu soo galo jannada cadaabna wuu u ballan qaaday ilaahay hortiisa markaa muxuu ka sheegay mar labaad muhiimadda iyo shaqada uu qaban doono ilaa inta qiyaamaha uu dhacayo markaas ayuu ibliis ilaahay dalab weydiistay قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين markaas kadib ayuu ilaahay ballan la galay ilaahay baa wuxuu ku leeyahay fabicizatika la uqwiyannahum ajmaciin soo dhibaatadaasi igumay dhicin aadamoon u sujuudi waayey isaga iyo wuxuu dhalayba waan hallaynayaa قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين kadib ilaahay aadam iyo xaawo oo feedhiisa laga abuuray waxa uu dejiyey jannada waxa uu u sheegay wax kasta oo jannada dhex yaalla inay u bannaan yihiin marka laga reebo hal geed ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين waxa kale oo ilaahay aadan u sheegay in shaydaanku uu yahay cadowgiisa cad إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير jannada waxaa ilaalinaysay malaa'ig ibliisna waa loo diiday inuu soo galo waxa uu goobayey shid aadam iyo xaawa uu ku lumiyo kadib waxa uu dhahay mas jannada gelaya oo ka baxaya isagoo aanay malaa'igtu ka hor joogsanaynin ibliis waxa uu ka dalbaday maskii inuu gudihiisa ku dhuunto si jannada uu galo maskiina uu ka yeelay arrinkaas kolkii uu jannada caga dhigtay waxa uu ka war helay in ilaahay uu aadam iyo xaawo geed ka xarrimay kadib waxa uu u arkay inay tahay fursad dahabi ah oo uu aadan iyo xaawo ku dagi karo markaas ayuu ibliis u sheegay aadan iyo xaawo sababta uu ilaahay uga reebay cunista geedkan oo ah فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين markii uu ibliis u dhaartay way rumaysteen waayo hore umay arag cid ilaahay been ugu dhaaranaysa sidaas ayay geedkiina ku cuneen فدلاهما بغرور
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. laga soo bilaabo maalintaas iyo ilaa maantadan aynu joogno ibliis waxa uu tafaxaydnaa inay aadamuhu dharka qubaan taas oo maanta ka muuqata dumarka gaalada iyo dharkooda taas oo bulshadeennana raadkeedii ka muuqdo waana jid ka mid ah jidadka uu ibliis aadamaha ugu haga naarta. markii ay geedkii cuneen ayuu ilaahay la hadlay aadan iyo xaawo oo ku yidhi وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. markaas ayay ilaahay warsadeen cafis iyo dembi dhaaf ilaahayna wuu ka toobad aqbalay xukunna wuu ku riday kaas oo ah قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ابن كثير waxa uu ku xusay kitaabkiisa al-bidaaya wa nihaaya bogga koobaad sabxadda 231 in nabi aadan lagu soo dejiyay dalka Hindiya. waxa ay sidoo kale taariikhyahanadu tibaxaan in ibliis lagu soo dejiyay magaalada Dastamiisaan oo u dhow magaalada Basra ee dalka Ciraaq. iyo in sidoo kale maskiina lagu soo dejiyay magaalada Asfahan ee dalka Iiraan. ibliis holacii laabtiisa ka ognaa wuu ku sii baahay mar walba waxa uu goobi jiray dabin uu lamaanahaas la helo oo gelinsiiyay in sidiisa jannada looga xarimo balse wuu ka ay waayay aadan iyo xaawana xaalkooda waxa uu noqday mari dage allaha dago laba shar idagase aniga ayaa istagay. aadan iyo xaawa faraha ayuu ka qaaday waxa uuna u jihaystay inuu awlaadooda marin habaabiyo. waxa uu yool ka dhigtay inuu dhib dhex dhigo labadii wiil ee ilmo aadan waa haabiil iyo qaabiil. balse waxaa tayasho mudan sidee ayuu uga faa'iidaystay inuu wax yar eegna waxa ay ku kala duwanaayeen haabiil iyo qaabiil. intaynaan sheekada u gudagelin bal labadan inay sheekadu ku socoto ayaynu bal xoogee si fiigooda wax ka yara sheegaynaa. ninka hore qaabiil weeyaan horta labadoodaba waxaa dhalay آدم عليه الصلاة والسلام. نينك الله يرادا قابيل وحوها نين أنانية ونفتيسة جعل ويعني نفتيسة إنه الراحية مويانة فإذا كلام قبين وحو كشقين يعني بيربو لها ووحو أهانين ماركت بيرلية ويعني بيرتيسة خضار كايو حيالاك صبحا كشقيستا أيوها لكن إن هذا على الحن وهذا قلبي حن ونحريست قلبي جيس يعني نحريست ويكون يريد أيوها. ninkaasi sida midna ibn Kathir oo tafsiirkiisa ku sheegayo iyo qeyrkiiba. ninkii labaad haabiil baa la oran jiray. haabiil waxay ahayd laba nin oo walaala isagii haabiil laakiin isku calool ma ahayn. isku hooyaa dhashay laakiin isku calool ma ahayn oo sharxi doonaa arinta. wuxuu ahaa nin tayiba oo wanaagsan oo kalgacayl badan oo qalbi fiican oo cibaado badan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u jajaban. وشقدي أريجان راعي شري يعني حراء أريا أيولها ونين مارت أريجان راعي شري أيوها. إبليس waxa uu dareemay inuu qaabiil ka faa'iideysan karo xumaantiisa awgeed sida awgeed isaga ayuu u soo maray fulinta qorshihiisa labaad. maxaa dhacay xaawi 20 jeer bay wax dhashay sida مثلا kutubtu ay sheegayso مثلا الاتقان كو kale lagu sheegay kitab tabaqat al-kubra iyo qeyrkeed shawkaanina kitabkiisa fath al-qadir ku sheegayo xaawi waxay 20 jeer bay yani uur bay dhashay uur walba wiil iyo gabadh ayaa ku sugnaa shariicadoodu markaa waqti waliba shariicad u gaar bay leedahay shariicadoodu markaa waxay ahayd in uurkani waa wiil iyo gabadh uurka ku xigana waa wiil iyo gabadh in wiilka uurkani gabadha uurka kale uu guursado gabadha uurkanina wiilka ama inanka uurka labaad
ay isguursadaan sidaas buu ahaa qaanuunku wakhtigaa jiray marka xaawi qaabiil bay dhashay calooshaa hore qaabiil waxaa la dhalatay isku calool ahaayeen inan aad iyo aad iyo aad u qurux badan oo la odhan jiray luuda marka luuda iyo qaabiil isku hooy aabuhu waaba dee aadame isku hooy isku calool bay ahaayeen oo uurkaasay mar keliya ka wada dhasheen kii ku xigay waxaa dhashay ninkii haabiil la odhan jiray walaashiisa la dhalatayna waxaa la odhan jiray aqliimiya marka uurka hore wuxuu ahaa qaabiil iyo walaashii luuda uurkii labaadna wuxuu ahaa haabiil iyo walaashii la odhan jiray aqliimiya sida qarar tibyaan libni jamacat alxamawiya qeyrkii ay sheegayaan saasay ahayd sheekadu caruurtii baa waaweynaaday walaalihii baa hooyadooda ilaalinaysay baa dee dad waaweyn oo doobaba noqday dhalinyare dabeetana la noqday qaabiil iyo haabiil way shaqaysanayeen nin walba shaqadiisu haystay qaabiil sidaanu sheegnay dee beertiisaasuu iska faranayay ninkii haabiil la odhan jiray naarigiisaasuu iska raacayey dabeetna waxay qasab noqotay qaabiil markaa wuxuu ahaa ilankii ugu weynaa ee uu aadam dhalay wuxuu ahaa dee curadkiibuu ahaa sida xayaat alxayawaan damiire sheegayo waxay jeclaysteen markaa ninkii qaabiil iyo haabiil waxay jeclaysteen inay dee guursadaan dabta ilaah subxaana watacaala wuxuu u waxyooday nebi aadam calayhi salaatu wasalaam inuu dee qaabiilla loo guuriyo in qaabiil loo guuriyo aqliimiya ee la dhalatay haabiil haabiilla loo guuriyo luuda ee la dhalatay qaabiil saasaa dee loogu waxyooday sida saciid ibn musayib iyo qeyrkii baa sheegayaan dabeetana aadam arrintii buu aqbalay wuxuu yeedhay qaabiil iyo haabiil wuxuu sheegay amarka ilaahay subxana wa tacala ku amray in nin walba ninka kale walaashii uu maaratay laysu bedelo oo la siiyo qaabiil baa diiday qaabiil wuxuu yidhi anigu iqliimiya oo la dhalatay haabiil oo foosha xun guursan maayo marka labada hablood waxaa la yidhi luuda ee la dhalatay qaabiil ayaa dhag lahayd oo qurux badnayd ta kan waxaan dhici karta inay iska dhex jirtay dadka ama ay dee fool xumaydba sidan uu qaabiil leeyahay dabeetana qaabiil baa wuxuu yidhi ma doonayo anu luudaan guursanaya tan isku caloosha ku dhalannay ayaan guursanaya guursan maayo tan haabiil ee iqliimiya ibliis waxa uu u arkay inay tayna tahay fursad lama dhaafaana oo uu jab labaad ugu geysan karo aadam iyo awlaaddiisa ninkii sidaas amarkii ku diiday dabeetna aadam baa wuxuu qaabiil ku yidhi nebi aadam baa qaabiil wuxuu ku yidhi haddii aad diidday inaad aqbasho amarkaa mid baa kuu bannaan waxaa kuu bannaan buu yidhi qurbaan la kaalay sadaqa la kaalay qurbaan la kaalay walaa kaana qurbaan hala yimaado dabeetna markaa siday u dhacaysaa bay yidhahdeen nebi aadam baa wuxuu ku yidhi qofka qurbaankiisa la aqbalo ayaa looda gursanaya waxaweye qurbaanka la waayo waa la aqbalo waa la qaaday markaa qofka qurbaankiisa la qaado ayaa la aqbalay isagaa markaa looda gursanaya ama qaabil ha noqdo ama habiil ha noqdo marka qurbaankooda waqtigaa wuxuu ahaa inay qurbaanka soo bandhigaan dabeetana dabi yimaado dab lasoo diro dabeetana dabkaasi uu qurbaankii la aqbalay uu qaado haabiil waa ninkii wanaagsanaa ee qalbiga fiicnaa ee ariga lahaa neef ariya oo shilis oo wanaagsan oo ay taadi jirin qofku inuu sadaqada ama maalan maalinta ciidda u qalo oo kale ayuu la yimid keebuu meeshii dhigay loogu talagalay in qurbaanka la dhigo ninkii la odhan jiray qaabiil ee gacanta adkaa ee dhibaatada badnaa ee caloosha xumaa ee xasadka badnaa xoogee yaroo maaragtay xashiish yaroo maaragtay kasoo hadhay beertiisa oon dee geed nafle aan ahayn oo midho nafle aan ahayn oo yani wax la miiso nafle aan ahayn waxba aan ahayn oo maaragtay geedaha yaree meelaha kasoo baxbaxa ee maaragtay layska ururiyo ayuu soo ururiyo kiibuu soo dhigay way iska noqdeen iyar kadib baa dab baa yimid dabkii muxuu qaaday dabkii kabshigii ama neefkii ariga ahaa ee ninkii haabiil iska lahaa ayaa lala kacay la qaatay sida ibn cabaas iyo qeyrkiis baa sheegayaan marka ibn cabaas ra'yigiisu waxa weeyaan wallahu aclam ibn cabaas wuxuu yidhi neefkaasi waa neefkaas cirkaa la geeyey cirkuu dabeetana daaqi jiray dabeetana nebi ibraahim markii lagu yidhi waxaad qashaa inankaaga ee dabeetana ilaahi subxaana wa tacala wafadaynaahu bidibxin cadiim dibxigaa la soo dejiyey inuu ahaa dibxigii inuu yahay neefkaa berigaa habiil uu keenay ayuu aaminsan yahay sida tafsiirka ibnu kathiir ku sugan isnaadkiisuna waa fiican yahay baa la leeyahay wallahu aclam ayib ilaahay wuxuu aqbalay maxay qurbaankii iyo sadaqadii ninkii la odhan jiray haabiil
haddana ka saacal xumo kale kaga dhacday ninkii loo jiray qaabiil wuxuu ogaaday markaa in markaa sheekadaas markii sidaa u dhacday maxaa markii uu noqday amarkii wuxuu noqday markaa ninka la sadaqadiisii la aqbalay ee la yiraahdo haabiil in walaa inuu guursado isagu gabadhii luuday quruxda badnayd maroro dilaac ninkii qaabiil arrintii buu aqbali waayey markaas ayuu ibliis qaabiil kula faqay inuu walaalkii isdhaafiyo isaguna uu luuda u hadho taasina waxa ay gelinsiisay inuu walaalkii xinjirtiisa bururiyo xiqdi iyo xasad baa galay dabeetana wuxuu ku tashaday ninkii qaabiil inuu dilo ninkii loo jiray haabiil waa walaalkii إنما يتقبل الله من المتقين بوينك يا هابيل إلهي سبحانه وتعالى قفك متقي لك عبصد بقاقولها لا إن بسطت إلي يدك لتقتلني سورة المائدة كسوكانت هدي أنت هذا الصوبان دكتور صوف فيدتو ودوني سيدي أدونتين أدي شو أنا وقعنت إذا صوف ذين ما يسلم كودلو إني أخاف الله رب العالمين لا بك بقى أنا قد المو كولا مكعيو إني أريد أن تبوح عن دوني إن دنبي جيجا يدنبي جاجا با لبض بعض وضح حنبارته فتكون من أصحاب النار سيظن قطاس أهل النار وذلك جزاء الظالمين تاسع جزاء ظالمين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إلهي سبحانه وتعالى يسوق آيات السي وضبا وحويلي فطوعت له نفسه أخي وحا وشجبناتي نفتيسي أقراتي إن ولكن يدله فقتله ولكن يهدله كوبك كسيه فأصبح من الخاسرين قلوا لك خساري أيكم من نقضي فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. sidaas ayuu ibliis ku guulaystay qorshihiisii labaadna wuu ku hirgalay sidoo kale waxa uu halkaa inooga cad in dilkii u horreeyey ee adduunka ka dhaca ay haween sabab u ahaayeen markaas kadib ibliis waxa uu damcay inuu dhisto boqortooyo oo uu isugu ururiyo jinkii xilligii dagaalkii malaa'igta u firdhaday jasiiradaha si ay ciidan ugu noqdaan. أراد إبليس أن تكون مملكته في المواطن التي فر إليها معظم شياطين الجن إبان غزو الملائكة والتي كانت لجزر البحار التي يصل تعدادها عشرات الآلاف. استغل إبليس قدرات الجن الخارقة في بناء المملكة وبعد ذلك وضع عرشه على الماء وأسس جيشه من شياطين الجن الذين التفوا حوله في مملكته ينفذون كل ما يأمرهم به. وأسس إبليس مجلس وزرائه الذي سيقود مخططاته الشيطانية في عالم الإنس. kadib ibliis waxa uu doortay inuu ka dhisto boqortooyadiisa saddex geeska Bermuda ama Bermuda Triangle. وظلت مملكة شياطين الجن آمنة لعصور عدة، لكن ما أن عرف الإنسان ركوب البحر ومروا بكلتي المنطقتين إلا وأدرك شياطين الجن الخطر الذي يهددهم، فاختطفوا أعدادا من السفن والقوارب والغواصات والطائرات التي ربما رأت سرا عن عالم شياطين الجن. فخشي الجن افتضاح أمرهم وبالتالي خسارة مملكتهم، كما خسروا من قبل الأرض التي كانوا وحدهم يعيشون فيها، فعمدوا إلى اختطاف كل طائرة وسفينة ونحوهما. عندها صدر قرار دولي بمنع الملاحة في منطقة. halkaas ayuu degan yahay ibliis maanta, halkaas ayuu boqortooyadiisa ka maamulaa, halkaas ayuu basharkana dhagarta uga soo maleegaa.